نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله. غزوة ذات الرقاع markii asxaabtu ay ka soo laameen waqti duhur geed hadh macaan bay nebiga u dhaafeen iyakuna geeda kale raadsadeen markaa buu nebigu seeftiisa soo qaaday geedka ayuu sudhay markaasuu nebigu geedkii hoos seexday yaana daba socda min mushrika oo acraabiya khawrath binu xaaris la dhihi jiray ayaa daba socda reerkiisii baa la soo dhammeeyey dadkiisii baa la soo laayey xoolihiisii baa la soo qaatay imisuu ninkaasi ciidha iyo cadhow haya nebiga asxaabta inuu cidlo ku helo wuu u jeedaa nebigoo geedkii hoos urda keligii asxaabtuna way seexdeen wakhti dahiira weeyaan cadceeddu waa kulayl geed hadh fiican baa nebiga loo dhaafay seeftiisii nebigu geed ku sudhay uu seexdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu nebigu ku kacay rasuulku markaasuu nebigu indhaha kala qaaday waaba ninkii oo dul taaganba markaasuu yidhi alaa takhaafunii miyaanad iga cabsanayn markaasuu nebiguni maynkaa cabsan maayo markaasuu yidhi man yamnacuka minii ayaa iga kaa mancin kara maanta markaasuu nebigu yidhi allah 3 jeer weli asxaabta nebigu war kama hayan qisadda dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane asxaabtiisu war kama qabaan way hurdaan waa sida xadiisku dhigayo seeftii baa ka dhacday ninkii isla markii nebigaa seeftii qaatay nebigu markuu seeftii qaatuu ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay soo kaca buuhi way soo kaceen markaasuu nebigu qisaddii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay muxuu uga jeedaa nebigu qisaddaas inna haadaa ikhtarada calaya sayfii wa ana naa'imun faاstayqadtuhu وفي يده سلتا فقال لي ألا تخافني فقلت لا فقال لي من يمنعك مني فقلت الله 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 فسقط السيف من يده قصة ماشا كدعدي أصحابته ما جوجين لكن نبي أوجو الرمايا نحو نبي أوجو جدا قصة أوجو الرمايا توكل كبريا توكل اعتماد على الله مخلوق دن صدو دن يهي لا يتحرك إلا بإرادته ولا يسكن إلا بإرادته وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا